أرديان أنا يدلك حقوق مكلو دول أحبر ما أنا قرصارو دلك حقوق جدو وحبر الشذا دقسي سر امتحان كأن قادني مركز قبل اللي يراهده قبل كوجو بوندة بدن وحا waxaan oo wanaagsan aqyaarta hawada aan ku saaxiibnay idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga ha idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareeyo subxaan allah subxaanahu wa ta'aala aan kaga baryaynaa umuuraha leedahay ilaahayna u sahlaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala awlaadda uu barakeeyaa inta awlaaddoonkaana ilaahay awlaad baaray ha siiyo inta guurdoonkaana guur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan eebbaweyna ha siiyo qof walba muuqaalka sheerta ku qabtaan la gareeyana waxa rabbi subxaanahu wa ta'aala aan kaga baryaynaa maal adduunyo isfileen inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu siiyo dambigood iyo dambiga waalidkoodana eebbow dhaafa rabbi subxaanahu wa ta'aala uu ku cazumaa jannatul firdaws al-a'la xaasidka waxaan leenahay wa min sharri xaasidin idaa xasad al-xaasid laa yaflah biidni illaahi al-kariim waxaa kuu dambeynaya hoog iyo khasaaro oo rabbi subxaanahu wa ta'aala aan kaga baryaynaa waxaan dhammaanteen rabbi subxaanahu wa ta'aala aan weydiisanaynaa inta xanuunsan inuu ilaahay subxaanahu وتعالى حنونك وكدل قاضو عافمادنا ugu badalo waxaan rabbi subxaanahu wa ta'aala dhammaanteen aan ka baryeynaa inuu ummadda Soomaaliyeed faraj qeyr qaba ilaahay uu furo waxaan eegi doonaa warbixin xasaasi ah oo ku saabsan qaabka loo sameeyay natiijooyinka feega ah ee imtixaanaadka ee dugsiyada sare iyo waliba sirta arintaasi ka dambeysay iyo dukumeentiyo cadeynaya musuqmaasuqa uu ku dhaqmay wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre hadoo muuqaalkan si degan u fiirso waxaan ku eegi doonaa warbixin arintaasi ku saabsan ayadoona muhiim ay tahay dhammaanteen inaan ka qayb qaadano hashtagyada lagu diidan yahay natiijada imtixaanka been abuurka ee la sameeyay ee wasaaradda waxbarashada ay sameysay qof walbana waxa waajib ka saaran in arintaasi laga dhiidhiyo wasaaradda waxbarashada ee madaxda uu ka yahay Cabdullaahi Goodax Barre ayaa shalay waxay soo saartay natiijada waxbarashada dugsiyada sare ee imtixaanaadka ardayda u fadhiisatay waxaana ugu badan ardayda imtixaanaadka gashay ardayda magaalada caasimadda u ah Soomaaliya Muqdisho waxaana natiijada imtixaankaasi dadka lagu dulmiyana u badan ardayda wax ka barata magaalada Muqdisho ah hoyga waxbarashada ee Soomaaliya waana mid muujinaysa ama lagu muujinayo Muqdisho inaysan jirin waxbarasho isla markaana ay liidato waxbarashada magaalada caasimadda Muqdisho inay ku nool yihiin 4 milyan oo qofood ku dhawaad laakiin Cabdullaahi Goodax Barre iyo waliba kooxda arintan soo abaabushay meesan ka fikirin mar haddaysan Muqdisho waxbarasho fiican ama tayada waxbarashada Muqdisho aysan fiicneen in guud ahaanba Soomaaliya waxbarashadeeda ay tahay mid liidato eber ah waxayse ka fiiriyeen oo kaliya inay gaaraan hanka iyo waliba ujeedka siyaasadeed ay leeyihiin waxaana ay siyaasadeeyeen waxbarashadii dalka 2019 iyo waliba 2020 wax farqi ah ma jiro ama sanado badan oo u dhaxeeya ama waqti badan oo u dhaxeeya ma jirto 2019 shanta kaalimood ee ugu horeeyay natiijada imtixaanka wasaaradda waxbarashada ee dugsiyada sare dhamaantooda waxa galay iskuule ku yaal magaalada Muqdisho kuwaasi oo imtixaanaadka natiijo fiican ka keenay ama kaalimaha ugu horeeyay shanta kaalimood galay sida iskuulka Al-Fajri Imam Shaafici المعروف يولي اسكوله كله oo lamid ah kuwaas oo dhamaantooda ku yaal magaalada Muqdisho laakiin natiijada waxbarashada ee imtixaanaadka ee shalay la soo saaray waxa lagu xusay ku dhawaad 7,000 oo arday oo kamid ah kuwa imtixaanaadka Muqdisho ka galay ee dugsiyada sare inay ku dhaceen natiijadii waxbarasho ama natiijadii imtixaanka ee la soo saaray tabanka kaalimooda ugu horeeya imtixaanka muusan ku jirin qof kamid ah ardayda magaalada Muqdisho wax ka barata kuwaas oo ugu ahaa ardaydii ugu badneed ee gashay imtixaanka wasaaradda waxbarashada waxay taas ifinaysaa in tabanka ugu horeeya 6 kamid ah ay galaan Jubbaland gaar ahaan 5 kamid ah ama ku dhawaad 5 kamid ah waxay ka soo jeedaan magaalada Garbahaari oo ardayda ka soo jeeda Garbahaari ayaa xoojistay ayay tiri wasaaradda waxbarashada 5 kaalimood ee ugu horeeya waxa dhawaan gobolka Gadab booqday wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre xubno muhiim ah oo wasiirka la socday booqashadiisa oo ka soo jeeda magaalada Muqdisho waxay sheegeen in wasiirka uu qaaday warqadaha lagu galayay imtixaanka wasaaradda waxbarashada waxaana 5 arday oo madaxweynaha Soomaaliya qaraabe ay yihiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay mar labaad galeen imtixaankii wasaaradda waxbarashada waxaana xilligaasi la siiyay su'aalaha iyo jawaabaha wada saxan oo wada socda taas oo keentay in 5taasi arday ay keenaan 100% ama 99% natiijada imtixaanka waana wax loo qashay ayadoo gadaal dambe laga geliyay imtixaanka wasaaradda waxbarashada waxaana arintaasi ka shaqeeyay wasiirka waxbarashada
cabdullaahi goodax barre iyo xildhibaan cabdishakuur cali mire oo asigana ka soo jeeda gobolka Gado waxaa sidoo kale arrintan ku wehelinayay gabar xildhibaanad ah oo ina isaaq biixi ah ujeedka uu lahaa xildhibaan cabdullaahi goodax barre ama wasiir cabdullaahi goodax barre oo ah shakhsi aftahana garna aan laga helin waxay tahay in loo magacaabo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ama lagu soo celiyo kursigiisa xildhibaannimo asoo kalsooni ka raadsanaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gobolka uu ka soo jeeday Gado shanta kaalmood ee ugu horeeyay imtixaankii wasaaradda waxbarashada ka galay miisaal ahaan gobolka Gado gaar ahaan degmada Garbahaar ee hadda la sheegayo in shanta kaalmood ee ugu horeeyay ee gashay iskuulo waxbarasho tayo leh ma haysato dugsiyada sarana waxaa dhammaan macallimiinka ah arday ka baxday iskuulada xamar sida Imaamu Shaafici Mujamac Umar Qura Yuusuf Kooneen Usaama bin Zayd iyo kuwa kale oo la mid ah oo ku yaal magaalada Muqdisho oo ku jiro iskuulka hooyga xamar kuwaas oo dhammaantooda macallimiinka ah degmada Garbahaar ee iskuulada ku yaal Muqdisho waxaa macallimiinka ah professor ka baxday jaamacadaha Soomaaliya ku yaal xilligii dawladii dhexe Maxamed Siyaad Barre sida jaamacadda Lafoole ummadda iyo waliba jaamacada kale sidoo kale Muqdisho waxaa macallimiinka ah macallimiinta dhiga jaamacadaha waaweyn ee Muqdisho kuwaas oo kelina dhiga dugsiyada sare ee xamar taas oo muujinaysa aqoonta iyo heerka aqoonta ay leeyihiin ardayda ku dhaqan magaalada Muqdisho miisaal ahaan Garbahaar ee iskuulada ku yaal malaha agab waxbarasho dhameystiran waxaana ardayda ay ku dhigtaan lacag ka yar $8 halka ardayda dugsiyada sare ee xamarna lacagaha ay iskuulada ay ku dhigtaan ay gaarayso $60 waxayna leeyihiin agab dhameystiran oo waxbarasho waxaase ayaan darro ah in arday 12 sano wax la soo barayay isla markaana hooyooyinkood qaarkood ay gadayeen yaanyo ama qaab ama wax la mid ah in maanta la niyajabay isla markaana qaab siyaasadeysan lagu sheegay in imtixaanka ay ku dhaceen ama aysan gelin 10 kaalmood ee ugu horeeya ujeedka ugu weyn ee laga leeyahayna waxay tahay in la bahdilo waxbarashada Muqdisho iyo sidoo kale ardayda loo qaadayo Turkiga oo minxada waxbarasho helaya in dhammaantooda ama ay u bataan kuwa isku reer ay yihiin madaxweynaha Soomaaliya kala soo jeeda beesha Mariixaan waana sida hadda wasaaradda waxbarashada ay u soo saartay natiijada imtixaanaadka waxaana hadda ardayda ugu badan ee Turkiga loo qaadi doona ay noqon doonaan kuwa ka soo jeeda gobolka madaxweynaha uu ka soo jeeday Gado waxaase muhiim ah in arintan hashtag la wada isla markaana dhammaanteen aan ka mudaaharaadno natiijada fake ah ee ben abuurka ah ee wasaaradda waxbarashada ay soo saartay oo siyaasadeysan sidoo kale dhalinyarada waa inay wadaan kacdoonka ay ka wadaan social media miisaal ahaan kooxda taageersan Cabdullaahi goodax barre waxay soo galiyeen Facebooka propaganda ku aadan in ardayda Muqdisho ay ku mashquuleen cunug yar oo lagu magacaabo Sharma Boy heesiisa waa sida ay aaminsan yihiin ama ay rabaan inay ku jahwareeriyaan ardayda magaalada Muqdisho cunugan oo aan jirinba taqaan waxaana cunugan oo la wareystay Sharma Boy uu sheegay 7,000 ee liiri imtixaanka way ku dhacday in 5,000 oo kamid ah aysan ka seenin magaca Sharma Boy waa sida qudhiisa uu qabo laakiin waa mashquul la doonayo in lagu jahwareeriyo ardayda Muqdisho isweydii adiga internet kama shaqeeyo miya degmada Garbahaar dadka Garbahaar ku dhaqana ma isticmaalaan miya aaladan hadda la leeyahay ardayda Muqdisho way ku mashquuleen ee TikTok ayaan darada ugu weyn waxay tahay in arday badan oo kamid ah kuwa Muqdisho la yiri imtixaanaadku waa ku dhacdeen oo ishuba in imtixaanaadka ay baaseen ayaa la sheegay maskaxiyar inay shoogeen qaarkoodna ay isla hadleen saacadihii la soo dhaafay sida inoo sheegan waalidiinta ardaydaasi waxaa muhiim ah in la sameeyo guddi baarta natiijada imtixaanaadka si saxna u baarta sidoo kale waxaa muhiim ah in ardayda loo sheegay in imtixaanaadka ay ku dhaceen 7,000 la siiyo warqadihii originalka ee imtixaanaadka ay ku galeen si ay u arkaan su'aalaha ay qaldeen iyo kuwa ay ku jawaabeen waana mid kali ah ay ku qanci karaan ardayda Muqdisho ka qayb qaada kacdoonka ka dhanka ah natiijada been abuurka ee siyaasadeysan ee uu ku doonayo mansamka siyaasadeed inuu ku gaaro wasiir Cabdullaahi goodax barre